waxaan rabaa caawina idinla wadaago xaaladda coronavirus case xaaladda ka jirta waddanka iyo tirada hadda la haayo inuu idin sheego. tirada guud ee ilaa ay hadda la haayo waa 21 qof. hal qof wuxuu ku jiraa Xalane, 5 qof waxay ku jirtaa isbitaalka Martiini, 2 qof ayaa waxay u sii baahan tahay xanaano aad u gaar ah, 12 qof waxay karantiil ku yihiin gurigooda, 2 way raysatay oo ilaahay waa bogsiyay alxamdulillah, 1 qofna waa dhintay. ilaahay ha u naxariisto, jannada ha ka waraabiyo intii uu ka baxay isaga intii geeriyootay Allah u naxariisto, sabarna Allah ka siiyo. waxaa muuqata in xanuunka uu si aayar ugu sii fidayo bulshada dhexdeeda maadaama cudurka haatan laga helay dad iyaga aanan dhawaanahan gelin wax safar ah ama aanan xiriir la sameynin qaar ka mid ah dadka la xutuujiyay in cudurka laga helay. waxaa haddaba muhiim ah in la wada raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin sida soo socda: in dadka guryahooda joogaan haddii aysan jirin wax ka dhifaya inay bannaanka u soo baxaan, in la kala fogaado oo dadka ilaa 2 mitir ay isku jiraan haddii ay bannaanka joogaan oo soo dhacdaba inay soo baxaan, in la laasimo faradhaqashada saxda ah ayadoo la isticmaalayo biyo soconaya iyo saabuun ugu yaraan ilaa 20 ilbiriqsi, salaanta gacan qaadida in la joojiyo iyo in qofka loo haanyoodo oo laabta la geliyo marka la is salaamayo waa in la joojiyo taas, in qofku ku qufaco ama ku hindhiso xusulka isaga oo laabaya cududda ama isticmaalo tiish, inaadan marnaba ku taabanin gacmaha afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga. qof kasta oo isku arka qandho, qufac ama neef qabasho waa inuu wacaa lambarka gaaban ee 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo. cudurka coronavirus COVID-19 waxa uu saameynta ugu badan u geystay dadka ay da'doodu weyn tahay iyo dadka iyaga qaba cudurrada raaga sida dhiigkarka, macaanka, wadne xanuunka, xanuunada sanbabaha ku dhaca, beer xanuunka, keli xanuunka iyo dadka iyaga difaacooda jirka uu aad u yaryahay. waxaa habboon dadka da'da ah iyo dadka xanuunada raaga qaba ee bulshada ka midka ah in si gaar ah loo xanaaneeyo oo booqashada laga yareeyo oo laga ilaaliyo inay la yeeshaan falgal ama isku sulawaasha dadka intiisa kale. cid kasta oo qoyska ka mid ah oo lagu arko calaamadaha hargabka oo kala ah waa in laga fogeeya. carruurta yaryar ee xaafadda ka tirsan iyo dadka da'da ah ama cudurrada dabadheeraada qaba waa inaysan marnaba isdhexgelin. maadaama la fasaxay iskuullada waa in waalidiinta carruurtooda ku dhiirigeliyaan inay guriga joogaan. waa inaan marnaba carruurta loo ogolaan inay bannaanada wareegaan ama carruurta bannaanada kula ciyaaraan. waalidiinta waa inay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan sidii ay ciyaalkooda guryaha ay ugu hayn lahaayeen. wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka waxaa ka saaran mas'uuliyad mar walba oo in ay xoojiyaan wacyigelinta iyo talabsiinta bulshada Soomaaliyeed. waxaa habboon in si loo xakameeyo cudurka lagu dadaalo wax walba oo talooyin ay bixiyaan. waxaan ka doonaynaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay dareemaan ka shaqaynta badqabka bulshadeena inay tahay mas'uuliyad wadareed ee wada saaran, ay tahay waajib inaan ka shaqeyno sidii aan u xakameyn lahaa cudurka. Soomaaliya waa dal iska nugul, waa dal u baahan xanaano gaar ah dadkooda. ma haysano qalab badan oo lagula tacaalo. waxyaalaha ugu fiican waxa waa cudurkan in laga hortago. hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta. waa inaan ku dadaalnaa wacyigelinta, inaan ka fogaanaa wax allaale wixii ay takhaatiirta iyo
khubaraadana faraan oo ah yacni inaan ku dadaalo gacmo dhaqashada nadaafadda guud ahaan in ma aragtay isdhexgalka bulshada iyo maaragtay isu soo baxa ee la yareeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cudurkan dhibkiisa iyo aafadiisa naga haayo waa isu soo ducaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay waxa waaye ha naga badbaadiyo dhibkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu